مقلي هالنولات إلا ما أنت تاغن هاي دين عاقا هاي أبايو أنا وحبا ماركنا مان أوغين بريقان بورسنا هاي كان إذا نقبرتي وحبانا كمان أوغين شاكذا مركي صوب بحضر أنيق إسلمان تشوغين إلهي هو مقلع مفانت وأنا كحوم هاي بقول إنا ماركنا وكروح دباتية وأساتها النقطة أما قف كرونين أو دباتو كوست أنا أغحما ولا waa ka xumahay gabar walaashayaa tahay inaad guursato qof maadhar ah oo dad soo dilay oo gabdho soo kufsan jiray oo gabdhaha kaxaysan jiray oo duurka geyn jiray oo shan ay ku kufsan jireen xataa hal qof xataa kuma uusan sameynaha naag markuu hal nin kufsado waaba hal kaliya oo dhibaatadu waa hal qof laakiin koox ayuu gabdhaha maaragtay safka u galin jiray وانا نين أنا هذا مقلش كذا مركا كشكيسي والله أنا أروح معي وقت وابتدائي وأصغر ماركنا وشيري وحيقول هذا هذا الشيء محاكي قبط أنا أقول كم قبان ده هاي أنا إلما أسأل فرصة أنا كل وقت كل كذا هاي أنا أروح معهم كنا إلهي وباقر ده ما أنت دولة شغل أو حوانك قبل عن إسلام شغله ilmaha u dhaluna arkin oo magaalada ugu jooga ilmaha hataa u dhal hataa ma ark ana hataa suxun ii galay marka ana warfaasooy kaligeeda waxa adiga ku dhacan aad oo xumay boqolkiiba boqol laakiin waxaan la yaabaa sucaad ka sheegtay sucaad cayman allah u naxariisto ayaa ii ka sheegtay sucaadna maanta waa naga hooseysaa waxaan la yaabaa Abdullahi goob joogi ilmihiisa loo yarqabtay wax kasta ay sameysay laakiin Ilaahay u naxariisto gabadhaas ay dadaali jirtay tii Allah u timid jannatul firdawsna Allah geeyo abaa qof walba walaalo isaacidana jannatul firdaws Allah geeyo waxaa la yaabaa tayru soo wuxuu ugu dhacdaa gabadh la hash macaan qabtaa aniga dawal la hadlaan ku dhaga gabar walaasha Soomaaliyeed waaye waxa ku dhacana aad ugu xumaa wishina wax qaban karaa wallahi gabadh Soomaaliyeed maqlaayane inta fariin waxa ugu faraaya inuu Ilaahay ka baqo oo hadda warka uu cadeeyo oo dhawlaale macaan wixii way dhaceen waxa markina ishka maanta yani marka wixii ma soo noqonayaan dib ma soo noqonayaan maxaan ku xalnaa dad isla wada dhashaa la wadiyaa ma fahamtay oo soo hadlo waxa lagu eedeynaa inuu ka hadlo aad u jeclaan lahaa laakiin wuu aaminsan yahay wax ku dhacay ma aqaan intaas hadlaysa adigana intaasaan hadlaa lee quursana waliba laakiin maanta gabar Soomaaliyeed oo ka gobsan gabar Soomaaliyeed oo ka gobsan qabiil ugu hina dadkii kala qaataa inuu xaq ka hadlo waraada waxa sameeyay sheeb oo hadal hadda wax sameeyna dib waxa is caday gabar Soomaaliyeed oo maanta ka gobsan ama ka dadnimo fiican inay Soomaali ka dhalatay xataa uma maleynay abaayo waana ku mahadsantahay sharafta ii salaantay anigana si qalbiyan ku salaamay ilaahay adii awlaadaada ha idin waxaa la yaabaa laakiin arinta leedahay ilmihiisa ma kan warqabo haddaad meesha isku meel degantiin seebu ilmihiisa ma adaa dawladda u diidato ilmaha yoo imaanin ilmaha yoo arkin maya abti waligii Allah ma dhihin ilmaha ma arkin ilmaha dawladdu waxay dhahdaa way arki karaa asagana wuxuu haystaa castri ana castri haystaa ilmihiisa asagana uu imaan ma aniga marka dawladda ma u tago oo ma imaado dhaho waxa waaye waxay la tahay wax xun maalinku uu soo doonto haddana dhimo isla joogaan ma fahantay hadda marka kan kugu weyn meeqo jiraa gabadha asagaa u dhalo waxa waaye 2 years jirtaa wiilkana waa 9 jir وكوريا هذا شو كوريا ما كان قال يقول لك وكوريا أنا ما أركنه الميس حتى ما أركن ما يقولوا أصغر فالحين قطعي قاعد أنا وحاول هستنى وعندنا حدوي مقلاي هكسر قربحه هو سمية ما سمية هذا ما لك استناها هذا هم ما أركن ضد حتى يقول دقالين وده ما أركنه إيش محاول هذا كأودهسا أنا المهجة حتى إن في جو مرة بيني الكورن وقشو أنت قبر أوينيسو تمر الماء والكرايان waxaan wax meel weyn taabanayo waa sida u fiican tahay ilaahay intuu qabaq u dhaa ama waasimi ama sameyn ama gabadha diiday abaayo maanta adoog hooyo oo caruurtaas haysato inaan kugu fool xumeeyo oday adiga ku qabay ama ninkaaga anay fool xume ii tahay ninkaas ma nabaayo ilaahay waa ila ogyahay inuu i dhibaateeyay kaligiisna ima dhibaateynin mustaqbalkayga iyo noloshaydii oo dhan iyo maaragtay aayatiinkayga oo habeen madow ka dhigay hal habeen ninkaas waa ninka dunida igu madoobeeyay waana nafsiyo way u taalaa waa ogahay inuu nafsigaas helaayo
يعني فرعيسة حتى وما فيعنا وأوجهاي لكن ساسي تهي أنا وهذا وحن وشيء وحي تهي حنون جركي كبتي أو سنوي صدن يسدح سنان آمسنا صدن يسدح سنة كدب أيو جركي جديدة إنه سيها يحمان كجرت جوده إنن سي qarsado in igu filan waan qariyay ma ihi qof maanta ciyaal suuq oo hojidad ka taagan qof asturan oo sharaf leh oo ilaahay karaameeyaan ah inta itaqaana wax kasto xumaana way igu dhaceen Soomaali dhan barkeed way caysaa habartan waa yeelka habartan saana wax kasta la iiraaha laakiin waxaas oo dhan waa korkiisa إلهي وحق صورة وماركت عادل وحول بنو أوجه أنا جو وح إجا مدنتها كرامه أديك إما ذا كفسن أبايو عيالك إما كفسن لكن ننكاس إلهي على فكو قدري وكحم هاي أيا نلشي دي سو مذوبي مستقبل هو يعني apologize وحكو قدعي أنا قاعدة نقول مذا هاي دمران قلاء هاي وأنا قحم ما بقول في بقول إلى المهن حتى دقيستاني المهي سكر المكان وقما حتى معها وحنا حيف عن إنه حلو إلهي سبحانه قادر أنتو كعبس ونواسمي أما سمين مركز سيبين نقول أنا قاعد وحاول ما أنتو أمسو أو قبيل لو بدل شيء كذا ماشي قبيل متاعنا قبيلك حتى وحل الربا إنه قصته ما أنت إيمان دهلا قبيلك حتى هبوه ما بدل هستو مو بناك إمارة عميان adigu ma kula tahay ninkaago been ka sheegay inuu anaga islama joogno laakiin ilma isku dhalnay ana gabdha xataa fiiriya ii soo diray oo dhahay xataa markii aan waxba ka ogeyn oo way markii isha waliga Allah aan maqalan fiiriya ii soo diray maalin kasta ilmahaada aabahood intaantay wixii ku effecto aniga waajib ay ugu tahay inaan xaqayga ka doonto ninkaas waa ku sheegay aniga reerkayga jaamacad India la ii diri lahaa naag wax barasho u socoto oo mustaqbal leh oo ayatiin lahaan ahaa markuu noloshayda madoobeynay ma fahantay duur joogtaan naqday aniga ilaa today aan duur joogta ahaa qurbahaasan caruur ku dhalayaan ku korsaday wadanba mar aan u guurayo lafahayga la cararay walaal noloshaydu soo madoobeeyay isagana ilaahay wuu ka guday mana inkiri karo haddii maanta oo inkiri lahaa maalintan kow sheegu soo inkiri lahaa wuxuu dhihi lahaa islaam hadaatiin gabadhaas waa inabaysa iga qabta ma Soomaaliyo dhan oo nin Soomaaliyo dhan oo malaayiin hal Cabdullaahi Goof ka tilmaami lahaa maan umada dhan midba mar qabsado ma taajira oo maalan ku helaya magaciisa miya ma aha abaay waa ninkii dhibaatay waa ka xumahay inuu calaf ilaahay kuugu daray laakiin ma aha wax adiga aad qaladkeeda leedahay anigana ma ii waxaan qaladkeeda leeyahay labadeenaba dhibana unahay aniga qaasatan dhibana walaal macaan oo ilaahay ku booqdo isbitaalka waalido igeeyay isbitaalka waalida markaas markaa hadda jinni qabta lay dhaha jinnina ma qaba anxiety oo yirida baay iyo baanik afaad aniga waliga ila hadlin hadaa maanta arki lahaa xataan أنا الموضوع لو يسوي حرة دارك لا حتى ما مارك إيش هذا أبتي أو شيء ودي سمود هذا الشيء مركو حدا ولا لو إني أوضح حتى ما أركان قداي قبل أن عد كذا الله بتامي يسوي كاره وانا نجست وانا مقلي هذا أنا أروح مع قداي إنه هو يسوي الصومالي ما أبوه دولي بقيتها كان مرك أنا زمان كنا ما أقدر أدان هن أنا أبتي حتى أنا مسؤول هذه أبتي الظاهر مسوعين oo ima soo raadiyeen oo taleefon ma soo xariireen naqshaya daan waxa li soo raadinaya ama li soo raadka li soo galay waxa waaye ninkii amarka isku ku dhibaatay dhibka ka sheeganayso garta u haysato darteedu ii soo xariiriyay markaan waana ku xumahay waxaan wax ka qaban karna ma aha ilaahayna waa maqlaa waxaan ka qaban karna ma jirto inuu arkinaan ku dhaay dawladda ayadu u fasaxday xataan marka waxa uu aadaan ugu xumaay awish inuu markan dadku u maqlaa oo daahir maqlaa oo wixii gartii markan hoos ama kor wixii lagu dhameyn karo lagu dhameeyaa aniga cida ila hadlin male waa ogtahay xataa wadaadada ugu weyn America inay casuumeen oo iska keedheen iska sabar cid walba oo ila hadashay ay leedahay iska sabar intaas isaga la buuxa ana ka buuxa hal maalin been kama sheegin oo rabbiya iga sareey inaana been ka sheegin marka hadduu maanta uu wax isku ogeyn ma uusan aamusan abaa kulligeen waa u jeednaa inuu dambiile yahay laakiin kaligiisba dambiga igama gelin shan ruuxa dambiga iga galo isaga shan ku yahay iyo afar wuxuu ku yahayba isagaas maanta hadday hal qof ahaalayn waaba seexa lahaaba ilaan aniga isagii ilaahana laakiin waxay igu googoosteen hilbahayga habeen madow jarjarteen adduunyadana ogama haraayo
أباي هذا أروح معي هذا أروح معي والله بقول هذا أنا أروح معي ماركنا ما أنت وح عنك قبل كرنا مجلتو وح عنك كرنا مجلتو إلى أصلا حقها فانسي والله أنا وأنت لما كان بقول حتى على شيء حنطو واك أنت حتى نقول له ولا استويت أبتي وحقول أنا يا تمام كل سوى إلا حتى والله هلا سوي ولا باي هذا والله هلا أنا وحكم الدين أقول سيف والله هلا أفر سنة 100 سنة أيا أوينيسا waan jeclaan lahaa xataa inta qabiilkii waxa iska joojiyaan dadka rooriyo inay runta u sheegaan ay dhahaan war gabadha ka soo garbax oo hadal oo waxay leeyihiin inay iga garbaxaan iska daaya lacagaa rabtaa ay leeyihiin ayagoo ni ogeyn xataa aniga waxaan ahay iyo familkan ka soo jeedo iyo sababta arkay indhaha mali iyo voice baashaasan ku jiraa qolka xataa hadda waan niila joogaa waan dhageystaa hadalkaada oo intaada way dhibtaa aniga carruurteyda meesha joogo carruur kalena way joogaan annaga waxaan geysana ma laha waxaan ka ogaa horta ani ahaanteeda maanta haddaa weydsa xataa male wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waxa waay markii hadalka aan maqlay ilaa haddana wallaahi waa kula xanuunsan ilaahay ee maqlaaye aase dumar gabar soomaalina taa muslimade qof ooynaa intaas leeg oo maalin kasta dhahay oo meelka ooynaa isagana una hadlaynin waxaa waaye waan la yaabay dee waxaan ka qaban karna ma jirto laakiin ma kuu caddahay adoo og maanta hadduuna dulmi ku jirin inuu bannaanka inta yimaada dhihi lahaa islaamoo iga qabta ma kuu caddahay taas والله ما كنت لا أمسية وحاول وما يابنا هايبو أنت حتى أنت قلقوا سكر أبتدوا دايما هو كينا يا أول كينين وحتى ما أركب وحلا يا مهلا أو مهلين وش لا لا يا كل يبغى حوا مينس وحوا إنه كل باتي ويعدي أدون قبل وصلنا بعد ما قبل سما ما سمع إنسان هذا لا قفت يا جماعة مصنع أنا يقول سوية يبدأ وقبنا واحد تريمان حلا أنا عن كوري نسوق إلا ريبوت أو نوعا دماناي قول إني هاشرتي شلني هاشرتي ما أنتني هاشرتي قول وقوايان أو مجرتين كأ مركا عبد الله وحور ربع إنه وجاده سيس مك الله حكم كيس وحنا نقناي إيوه إن لقلو هشيس أو ما مسافي أي أقبشه إن حرصما لو كلا بحو أو سدعوت إلى الله إلى محكمة أنا سلا عاد اللي قال ما فهمت حدين مركز أي تلك قاري هذا إن كان ديل وايو هذا وحأمرين أدبوا قردونا لكن هدي هذيك اللي قبل المكتب هلا بحي أمرين مع سجوا يعني هيبوا إلى صح ده إن دي المكتب الرسمي ما وساف دايرو هالمر الشيء هدي معقول تهاي قبل قلنا ما دام رياضس أكيد واجسي أنا سافر ما مسافر أكو على إني عداته وح أي إذا أي أقشها إن أنت لو حالي السلام عليكم سايد ماركنا دمست ماركنا waxa ayada jecesha kulay waxa way dhaawac badan soo gaaray inay dhaawaceedii feelinka wixii ka hadlantay waxa ayada go'aanka ayadu ku xiran yahay hadii asaga markana uu ku sugaayo waxaan nahay asxaab annaga hoos u wada hadalno aniga saafi ugu daahirow go'aan cadna iga sug labada dhinac ka bacdi hadii ay arintu inta ku xiran tahay saafi anaa ka adag maya iyada go'aankeeda laga rabaa iyada waa in waqti tahay maadaama dhowr sano qalbigeedu gubanaysay maalin ama saacad aan codsanayaa saafi waa weydiinaynaa go'aankeeda wax la anagoo raga hadaa aan caburino waa qalad waxa gabadha qalbigeeda ku faraxsan tahay go'aankeeda inay noo sheegto هداي بريفة ربطنا الديار هداي ببلغ ربطنا الديار إنك استي ببلغ كفر عندك أيضا وتعالى ساعات ساعدي لا ماركنا كل جوانك أيضا إسكالي مرحبا السلام عليكم عبد الله قوف جوجي قرابة نهاي عبد الله أنا قرابة نهاي عبد الله قوف جوجي سافية وحواي واحد تري نمن بدني أهاي لكن كي عبد الله هو إلوبي لا ده حق مركز لقى هذا ما بقى كان نمانك كلا أباي ما إيش شيء كرت عادي سو عبد الله داهر كم السوق نمانك كلا مقعد هذا ما نمانك كوف صديق داهر مقعد كسوق مقعد هذا تاب كوجو دار تاب بقى كان أنا جه شنن أنا كسا كوف ستة ما نتخانق عبد الله كوف جو كان داهر وقف
gabadhan hadda ayada maxay meesha u timid ma inay muranto la doodo maya gabadhan maya hadda aniga saafiga waxaan rabaa inaan dhaho iska cafi ceebta lama faasado xilli hore waaye iska cafi adigana ku orod iska bax umada ilaahan kaaga bariya ceebta aniga aan leeyahay ayada go'aanka iskale haddii cafinaysa haddii kale ayada siirkeedasa wakiilka la helay waxay rabtaa gabar Soomaaliyeed oo soo dhibaateeyay maalin kasta la haya maalin kasta ayadii u taala gabadhan hadda meel babalka qaraabo ma ahan naagtiisa qaraabo gabadha hadlaysa ayaan miyaan baraafikada ayada ka dhigan karto yacni ayada gartu waxay ku gooyaan loo keeno go'aanka ayada iskale mar kasta waxa loo dulminaa qofka islaamka dhegeyso subhanallah ilaahay ka baqa sug anaa ku sheegay qofka meesha hadda ka hadlaysay waa gabadhii uu Cabdullaahi Goof qabay okay yeah wata gabadhu hadda uu qabaa إذا يعني إسكعفي وحي لها ما إذا سبحان الله maya ayadu naagta la qabo inkirayso ee dhahaysa ilma adeeraan nahay meetirada ninka waa ay qabaa macallatulla calaykum ya ayaan ayaan ma sheekadaas keenta maantana walaalay aniga gabadha waa la taageersanahay gabadha waxa waaye qalbiga ay gubtay ee xaaski waxaan ahay ii sheeg muxuu ahaa hebel Cabdullaahi Goof ana ku dambeysay ayaanay maya Cabdullaahi waxay tiri ma ay loobi la adhay tiri Cabdullaahi ninkii gaariga ku qaato nimanka waxa ugu sheekay dhaagta way jeclaan jirtay ku dhaxay ugu dhaarshay waxa soo xaq darma soo qof future ka roma soo hooy inay noqoto soo ilaahay kama baqay soo hooy noqon doontaa in the future may at least dhaado walaalo macaano gabadha ka soo garbax gabadha soo gabar Soomaali ma walaashado kale dadka ilaahay kama baqay qabiil iyo baqti iyo waxa weeriyay ilaahay dadka baqay maadniyo abti macaan waa ku salaamay saafi walaalo macaan ilaahay ku booqdo ilaahay xaqaadana ku siiyo dadku waxay soo qorayaan qaarkood hadda ismaba qabaanba way kala tageen gabadha hadda ma wasqaas qaba okay abdu waxaan ku wajiyay adaa daahiro daahiro galay weynikiisa arag walaal aniga dhibana ana leeyahay ku dhagan malaha saafi abaa iska dhaaf dadkaanay tamaal intaas soo samreysay abta meeshana joogtaa ummad ilaahay udula ku dhageysanaysa abaa iska dhaaf qofkii kugu dugtay qofkii kale asay ka soo bixi doonta xaq darada xaqaada kaas siiyo abti qaran ku rajeenaya adna sidoo kale walaashay darajo ku noolow ayat maanta waxa weeye wuxuu ugu sheekay way jeclayd ma fahamtay ka dhadhay hadda waa xoolo naagaha moogtahay waaba saasa ka daacada bal gabar intii la soo xumeeyay waxay leedahay ma iska caafisida waxa ugu dhagan tahay